habeenkii xalay ahaa waxaa hotel safari magaalada Qardho ka dhacay munaasabad u dhaxaysay guddiga horumarinta degmada Qardho maamulka degmada Qardho iyo dadweynaha magaalada kulanka waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Qardho maamulka gobolka Karkaar madaxda guddiga horumarinta degmada Qardho cuqaal waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn xoghaynta guddiga horumarinta degmada Qardho iyo gudoomiyaha guddiga Sheekh Axmed Yuusuf iyo xubin ka mid ah guddiga ayaa ugu horeyn madasha ka hadlay kuwaas oo soo bandhigay qorshahooda horumarinta degmada Qardho kuwaas oo ugu baaqay maamulka iyo dadweynaha degmada Qardho inay la shaqeeyaan qodobka koowaad mabaadi'da iyo siyaasadda uu ku shaqeynayo guddigu waa 10 qodob waxa ugu horeeya guddigu wuxuu ka kooban yahay 13 xubnood oo leh gudoomiye ku xigeen iyo xoghayn labo in wax fiican lagu soo kordhiyo qof walbana uu horumarkaas ka qayb qaato waxaan isku ognahay war magaaladan sidii awooyashaan uga tageen ayna wax badan ka bedelin hadda wax ka bedelno aan ka shaqeyno aan si fiican u horumarino aan gacmaha isqabsano bulsho isku tiirsan aan noqono waxaan u joognaa barnaamijka aragteen qaar waa la hirgeliyay ilaa heer madaxweyne kale waxa idin la hadli doona maayarka dekreetooyin bay ku soo baxeen qaar lacagtooda waa bilaabaan insha Allah baqinina si fiican bay u bilaabanaysaa iyadoo nidaam dekreetiya madaxdiina ay aqbaleen lacag joogto ah oo magaaladu leedahay oo magaalada wax lagu qabto taa waa bishaare inta kale oo hartay oo inagu aan ka mid nahay war waxaan rabnaa reer Qardhoodo ilaahay khayr ha idin siiyo sidoo sheekhu sheegay war adduunkii waxa ka socda dadaal diintii la hormariyo dhaqankoo la hormariyo dalkoo dadkoo la dhisto inagu intaba waxaan ka nahay hadda meel fiican gudoomiyaasha shirkadaha ganacsiga cuqaal iyo salaadiin ayaa munaasabada ka hadlay runtii aad baan wax u gogaadanayaa guddigan u istaagay sida ma u jeeda volunteerka ah inay ugu shaqeeyaan magaaladooda sidoo kale waxaan mahad u soo jeedinayaa gudoomiyaha degmada iyo kuligiisa deegaanka oo wada shaqeynta oo soo magacaabay runtii haddaynu dhammaanteen iskaashano guul weyn baynu gaaraynaa waxaan guddiga aan ogahay inay ku jiraan guddiga loo dhiso waa guddigii ugu fiicnaa aad baan u taageeraynaa waana aragnay qorshahooda iyo xeer hoosaadkooda waxooda waa aragnay waxaana inaga inoo mudan oo aan runtii ay tahay in aan wada taageerno oo ku taageerno haddii aan lahay jeebka iyo maskaxda iyo fikirka intaba aan ku taageerno oo aan fakar ku darsano xitaa oo fakar iyaga laftigooda ururiyaan wixii fakar ah arrintaas marka waxa weeye maasha Allah dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Karkaar Cabdicasiis Yuusuf Caamir ayaa munaasabada ka hadlay kaasoo guddiga ku booriyay shaqada wanaagsan ee u hayaan bulshada baan soo dhaweynayaa marka ugu horeysana uu hambalyeynaya inuu ducaynaya shaqada ballaaran oo loo dhiibay 13 xubnood oo guddiga ah horumarinta degmada Qardho waxaan leenahay jazakallahu khayr ilaah bayna ka abaal marin doona waxa ka dhex muuqda guddiga oo caaw dhan laga sarqaminayay culimadii caanka ahayd Fuad Sheekh Maxamed Haji Noor Axmed Yuusuf Daad Saciid xildhibaano golaha baarlamaanka ah dawladda Puntland oo aan caaw halka fadhiyeen liyaaro kale dad halku doora oo degmada Qardho iyo Puntlandba yaani ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid Qaala ayaa munaasabada soo xiray kaasoo guddiga uga mahadceliyay shaqada wanaagsan ee bulshada u hayaan waxa uu dadweynaha degmada Qardho ka codsaday inay la shaqeeyaan guddiga anoo aad u soo koobaya waxaan rabaa mar koowaad inaan u mahadceliyo inta ka soo xaadirtay madasha tan oo waqtigooda qiimaha badan soo bixiyay waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddiga horumarinta degmada oo waqtigooda iyo juhdigooda ay maarta u bixiyay bulshada Qardhood diyaarna u ah inay u shaqeeyaan guddiga sida la sheegay waa dadkii labeenta bulshadeena ka mid ahaa culimadii u waaweyned Puntland baa ku jira injineeradii baa ku jira dhalinyaradii baa ku jirta haweenkii baa ku jira aqoonyahaankii baa ku jira qaybihi kala duwanaa oo bulshadeena ugu qiimaha badnaa oo isku raacsannahay inay yihiin magoolkeennii baa ku jira aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in ay diyaar u yihiin inay bulshadooda u shaqeeyaan iyagoo aan waxba ka rabin inay bulshadooda u shaqeeyaan waqti geliyaan horumarinta ka qayb qaataan
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa kale oo ogtihiin inay horeyna ugu taagnaan jireen mar walba horumarinta Puntland laga wado xubnaha halka aan ku soo xunlay oo bulshada u taqaano xubno ku sifaysan ka shaqeynta danta guud waxaan rabnaa marka bulsho ahaan inaynu garab istaagno oo gacan siino oo aynu la tartanno magaalooyinka dhigeena magaalooyinku waa tartamayaan horumarka lagu tartamayaa waxqabadka lagu tartamayaa bilicda lagu tartamayaa magaalooyinkuna dabcan waxay ku kala hormari doonaan bulshada degan say ugu kacdo oo ay wax ugu bixiso oo ay waqti u galiso oo ay uga qayb qaadato horumarkiisa hadeerna waa guul inaynu intaas oo guddi ah oo nasiib u yeelanay degmadeena iyo gobolkeena ka soo jeeda inay shaqada inoo hogaamiyaan guddiga markii aan magacownay kadib waxa aan la wadaagnay saasoo kale guud ahaan bulshada madalsha tan oo kale aan kula wadaagnay sidoo kale guddiga waxa horgeynay guddiga joogtada oo xildhibaanada ah inta ka bacdi waxaan gaarsiinay ilaa madaxweynaha oo ay la kulmeen inta wixii ka dambeeyana madaxweynuhu wuxuu amar ku bixiyay in guddiga horumarinta Qardho suu u qaban lahaa horumarinta degmada uu gacan maartay horumarka gacan uga geysan lahaa in guddiga qorshihiisa halkan ku qoran oo qaybaha ay ka imaanayaan dhaqaalaha guddiga uu ku horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha waxa kamid ah in biyaha iyo korontada loo saaro dhaqaale loo saaro dhaqaalahaas $1 mid $1 biyaha iyo korontada la saarayo madaxweynuhu amar buu ku bixiyay digreetana waa ku saaray in guddiga muxuu ahaay dhaqaalaha uu qaado habka dhaqaalaha loo maamulayo oo hufan waa halka lagu soo bandhigay magaalooyinkii horteen qaatayna waa ku faa'iideen wadooyinka quruxda badan oo ay ku dhisteenna waa u jeedaan bisha tan marka laga bilaabo guud ahaan magaalada Qardho $1 iyo muxuu ahaay Qaasin Muuse Maxamuud wararka warbaahinta Sahal Cable degmada Qardho ee gobolka Karkaar adeegga mushaar bixinta payroll system ee bangiga Salaam waa adeeg kuu sahlaya inaad ku bixin karto mushaaraadka shaqaalahaaga si fudud iyagoo hal mar mushaaraadka u wada dhacayo intii ay waqti kugu qaadan lahayd mushaar bixinta payroll oo u sahlaya xarumaha ganacsiga iyo jooga goobahooda shaqada inay shaqaalahooda u dirsan karaan lacagaha mushaaraadka si fudud sidoo kale waxa